Soomaaliya iyo Kenya waa laba dal oo daris ah inkastoo ay ka dhaxayso dacwad heer caalami ah oo la xiriirta sheegashada gardarrada ah ee Kenya qayb ka mid ah badda Soomaaliya. Haddana xaaladda xiriirka labada dawladood waxa uu ahaa mid wanaagsan. Waa maxay sababta xiriirka labada dal uu u xumaaday? Tan iyo markii ay soo bilaabatay dacwadda badda, dhowr mar ayuu hakad galay xiriirka labada dal 7 sano ee la soo dhaafay. Soomaaliya waxay ku taagneyd dhabaha diblomaasiyadda iyo in si nabad ah lagu dhameeyo dacwadda labada dal iyadoo loo marayo qaanuunka caalamiga ah. Maxaa la isku hayaa maanta? Faragelinta siyaasadda gudaha maaha Kenya waxa la faragelinayo ee waa Soomaaliya arrimaheeda gaarka ah. Qalqalgelinta amniga qaranka Soomaaliya sida abaabulka maleeshooyin soo weerara gudaha dalka. Labada arrin ee aan soo sheegnay waxa ay ka dhan yihiin xeerarka caalamiga ah ee xiriirka dawladaha caalamka ee ilaalinta gobonnimada dhuleed iyo midda siyaasadeed ee uu qaran waliba leeyahay. Haddaba maxaa ka dhab ah eedaha Kenya loo jeediyay? 29 November 2020 Soomaaliya waxa ay wadatashi ugu yeertay safiirkeeda Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, halka ay fartay safiirka Kenya ee Soomaaliya in dib dalkiisa uu ugu laabto wadatashi. waxaan la tashi ugu yeeranay danjire Maxamed Axmed Nuur Tarsan oo ah danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya. waxaana la farayaa danjiraha Kenya u fadhiya dalka Soomaaliya mudane Lucas Tombo in uu dalkiisa wadatashi ugu laabto. dowladda federaalka Soomaaliya marnaba ma aqbali doonto in la soo fargeliyo ama lagu dhaqaaqo fal kasta oo wax u dhimaya madax bannaanida iyo deganaanshaha dalkeena. Kenya marna ma garwaaqsan dareenka dhaliyay dib isu celinta safiirada labada dawladood. 15 December 2020 dawladda Soomaaliya waxa ay xiriirka u jirtay Kenya. Haddaba maxaa sababay? dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ka duulaysa madax bannaanideeda qaran ee uu damaanad qaadaya xeerka iyo qaanuunka caalamiga gudanaysana waajibaadkeeda dastuuriga ee ka saaran ilaalinta midnimada qarannimada iyo xasiloonida dalka waxa ay go'aansatay inay xiriirka diblomaasiyadeed u jarto dowladda Kenya. dowladda federaalka Soomaaliya waxay u gaartay go'aankan si ay uga jawaabto xadgudubyada siyaasadeed iyo faragelinta qaawan ee isdaba joogga ah ee muddooyinkii ugu dambeeyay ay dowladda Kenya ku haysay madax bannaanida dalkeena. maalmo kadib markii xiriirka loo jaray Kenya 19 December 2020 dowladda Soomaaliya waxay qoraal ay soo saartay ay ku eedeysay Kenya abaabulka maleeshooyin ay dowladdu sheegtay in lagu diyaarinayo Mandera si ay u soo weeraraan ciidanka qaranka Soomaaliya ee jooga balad xaawo. 25 January 2021 waxa rumowday eedihii dowladda Soomaaliya ee Kenya u jeedisay kadib markii maleeshiyo abaabulani oo ka soo baxay Mandera ay soo weerareen magaalada balad xaawo. dad Soomaaliyeed oo la khalday oo u shaqeynaya gumaysi oo ka soo duulahaya dal shisheeye ah gudihiisa ka soo duulahaya ayaa waxay soo weerareen xalay ama soo galeen magaalada balad xaawo. runtii muddo intaa ka horeysay oo ay naga soo horjeedeen oo ku jireen xuduudda dalka Kenya waxaanu aad uga xishoonaynay annagoo qadarinayna sharciyada adduunka in aanan ku weerarin meeshooda. laakiin nasiib wanaag ayagii baa godka ka soo baxay. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyay. waxaan rabaa inaan idiin sheego in laga qabtay jabhaddii fallaagada ahayd 100 in ku dhow. 30 sano kadib Soomaaliya waa libaax qoyan bisad hamoodin. waxay si madax bannaan u qaadanaysaa go'aanadeeda diblomaasiyadeed waxayna maareynaysaa siyaasadeeda gudaha. Labadan qaadayno ninkii turunture magan maatida ku dhici doontaa taasina isweydiine ka tuhunsan Soomaali baa tamar yaro
taransan antala ku siine warhooy timir lafaa ku jirta waxaa ayaan darro ah maanta waxaa cad oo meeshaan ka muuqda oo ciidankii halkaa ka soo gudbay siligaa ka soo gudbay halkaa ka soo gudbay kastamkaa ka soo gudbay oo madaafiicdu kastamkaa ka soo dhacayso oo hadda ciidankii xerada militariga ee Kenya uu ku dhex jiro in dawladda Jabuuti ama Ismaaciil Cumar Geelle uu yiraahdo mataqaanaa Soomaaliya gardar inuu yiraahdo waa ayaan darro waxaan shacabka Soomaaliya u sheegayaa shacabka reer Jabuuti waa walaalihiin raalli kama ay ahaan waxa lagu hadlay iyo waxa ka soo baxayba waxay khaas ku tahay siyaasadda Ismaaciil Cumar Geelle ee uu ku dheerarsanayo xukunkiisa isagama qasaarinayno hub iyo rasaasna kuwa ay wataan baa sida hadda aan uga furanayna mucaaradka waan iraahdo mucaaradka aan xadka lahayn mucaaradku waa inuu xad leeyahay waa in ay jiraan wax xiraa waxaan maqli jiray dhaqaatiirta micnaha aan xadka lahayn mucaaradku marka waddanka la soo weeraro wax walba oo micnaha uu qabo muxaafidka ama xukuumadda marka xukunka haysta micnaha way laqaan qabkooda waa laqaan waxa nasiib darro ah in aysan ka hadlin arrintan ayada duulaanka Kenya iyo nimankan ay soo adeegsatay oo dambiilayaasha inaysan ka hadlin waxaan rabaa marka waxa weeye laba inaan dhaho walaalahan Jabuuti waxaan rabaa inaan iraahdo siyaasaddu waa dhamaataa laakiin dhiiggu ma dhamaado siyaasaddu isla tuxud ay ku jirtay ayaa waxa ku jiray afku Soomaa kii gaalkii ayaantii arligeena kala jaray astaamaha u kala dhigay ilma iyo adoogood abtir aan ka luminiyo isku xiraha shacabkiyo isirka isku raaceen afku Soomaa dhufayska iyo kaaraha عدو دفايسكي توتها مدغيو دبابا دغالديو دفايسكي كارها دفايس كما بقايو عدو دومن ايان كدوران ددكينا دحالكي اول كوي على مدى بينتا سميستي كوي سانو في سليفري waxaan leeyahay walaalayaal qabyaalad iyo siyaasad kuwaana ku kala saarayna qabyaalad balka waramahaye waxaan joognaa cirka meel kastoo qadara caqabad lama jooji karto buuraha weyn oo laga baqo gacan baa la gaarnaa daruuraha madow waxaan ay kumaada Soomaaliyeed adow waxaan ku dilnaa gacan bira meel kasta ay joogaan cirka dhulka badda saxaraha deegaanada deegaanada markasta iyo meel kasta yaar matiin yaatiin kumandos Soomaaliya